Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa weli waxaa ka taagan xiisadii ka dhalatay xilka qaadista lagu sameeyay taliyaha ciidamada BSF ee Puntland Maxamuud Cismaan Diyaano. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni oo xilka ka qaaday taliyaha ciidamada BSF ee Puntland ayaa ugu dambeyn waxaa ku gacan saaray isla markaana amarkaasi ka soo horjeestay xilka qaadista taliyaha ciidamada BSF Maxamuud Diyaano iyo ciidamada BSF. tan iyo intii ay xiisada xilka qaadista ay hawada isku sii shareertay isla markaana BSF ay ka soo baxeen goobihii ay kaga jireen difaaca la dagaalanka ururada Daacish iyo Al-Shabaab ee buuraleyda gobolka Bari isla markaana ay soo galeen gudaha magaalada Boosaaso. Waxaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari laga dareemay iyo weliba saansaan colaadeed iyadoona ciidamo tiro badan oo ka yimid gobolka Sanaag, Nugaal, Mudug iyo weliba sidoo kale xuduudaha gobolka Sool ay gaadheen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Ciidamo tiro badan oo isugu jira ciidamada daraawiishta militariga iyo booliska Puntland iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada Puntland oo ay ku jiraan ciidamada loo yaqaan BMP ee la dagaalanka burcadbadeeda ee Imaaraadka xilligan tababarku ayaa soo galay gudaha magaalada Boosaaso. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in Puntland ay ka jiri doonaan laba ciidan iyo laba dowladood iyo sidoo kale weliba ciidamo kala duwan oo ay rag haystaan iyadoo ciidamada Puntland sida loo yahay ay jiraan inta badan ciidamo ku dhisan nidaamka qabaliga isla markaana gaadiidka iyo ciidamada horumarinta iyo weliba xeryaha kala duwan ee Puntland ku sugan ay inta badan ku dhigasan yihiin nidaamka qabaliga. Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa marka ka dambeysay waxaa gaadhaya ciidamo ku gaashaaman gaadiidka dagaalka. ciidamadan oo moodinay ku soo qulqulayaan furiimo dagaal oo xilligan xabadi ka holcaso. lama oga sababta ciidamada difaaca Puntland looga soo saaray dhammaan buuraleyda gobolka Bari, gobolada Nugaal, Sool, Sanaag iyo sidoo kale weliba Mudug isla markaana magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ay ku sii qulqulayaan. inkastoo cabsida laga qabo isku dhaca labada ciidan iyo gudaha magaalada Boosaaso dagaal ka dhaca oo xilligan awood military ciidan lagu kala baxo ay guud ahaanba shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ay cabsi ka qabaan. haddana xaafadaha Ridwaan iyo xaafad Carab dadka ku nool ayaa cabsi gaar qaba. dad shacab ayaa lagu arkay muuqaaladooda baraha bulshada iyagoona cabasho ka muujinaya ciidamada Puntland ee huwanta ee gudaha magaalada Boosaaso galay isla markaana ka kala yimi furimaha iyo sidoo kale weliba gobolada Puntland. habeenii maalin qaxa ku jirnaa 24 ciyaalkeen meel kuma ogin dawladda 24 sax lagu ridaa anaga ma garateen xaafadana qax Ridwaan baan degan anaga reerkan DS anaga amniga ka heesana laakiin waxana qalqalinayna saaray waa ciidanka Deni. Siciid Cabdilaahi Deni ayaa la sheegay sababta xilliga BSF doonayo hoggaankeeda inuu meesha uga saaro inay tahay khilaaf u dhaxeeya isaga iyo Asad Cismaan Diyaano. dhanka kale Siciid Cabdilaahi Deni ayaa la sheegay inuu doonayo xilligan inuu hoos keeno dhammaan ciidamada Puntland qaybahooda kala duwan awoodooda isla markaana u magacaabo taliyaal isaga ka amar qaata. dhanka kalena waxaa la sheegay ujeedada ugu weyn in xilligan ku soo beegtay in BSF uu ka qaado xilka inay tahay inuu Siciid Cabdilaahi doonayo inuu madax banaanaado oo kale weliba qaabku doonaba inuu ula dhaqmo kuraasta golaha shacabka ee taalla magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyadoo la xasuusto doorashadii aqalka sare ka dhacday Puntland in Siciid Cabdilaahi Deni sidoo doono ugu tagrifalay isla markaana awood doono u adeegsaday sidoo uu soo saari lahaa xildhibaanada aqalka sare oo isaga taabacsan iyadoo la dhigay kuraasta taalla gobolka Bari ee magaalada Boosaaso ee deegaan doorashada golaha shacabka oo ah magaalada labaad ee Puntland inay ku jiraan kuraas xasaasi ah isla markaana xilligan odayaasha dhaqanka iyo beelaha kuraasta iyo musharaxiinta ay Siciid Cabdilaahi Deni ay arrimo siyaasadeed isku qaniinsan yihiin isla markaana isdiidan yihiin. waxaa la sheegay Siciid Cabdilaahi Deni inuu cabsi ka qabo in halkaas ay kaga soo baxo musharaxiin aan taabacsaneyn fakarkiisa iyo weliba sidoo kale doonistiisa. waxaana la sheegay laba ujeedo inuu ka leeyahay in magaalada uu ka abuuro qalqal iyo sidoo kale weliba xaalad ammaan darro isla markaana kuraastaasi loo soo wareejiyo dhanka magaalada Garowe iyo inuu taliska BSF meesha ka saaro sidoo kuraastaasi ugu madax banaanaado. xaaladda magaalada Boosaaso lama oga meel ay ku damayn doonto hase haatee waxaa fashilmay gebi ahaanba dadaalo iyo weliba sidoo kale doonis ay doonayeen odayaasha dhaqanku in xaaladda si hoose loo xaliyo.